assalaamu calaykum. Mowduuca maanta waxaa ku falaqayn doonaa waa maxay guul, sidee ku noqon karaa qof guulaysta. Ku soo dhawaada mowduuca maanta. kelmadda guushu waa macno badan tahay, mana laha qeexitaan u gaar oo la isku raacay, waxayna dhacdaa xeendaabyada kala duwan ee nolosha sida waxbarashada, ganacsiga, siyaasadda iyo wixii la mid ah. taasina waxay keentay in qof walba guushu u arko hadba siday ula muuqato. Tusaale, qofka ganacsadaha ah guushu wuxuu u arkaa marka uu faa'iido badan sameeyo. qofka siyaasiga ahna guushu wuxuu u arkaa markuu ku guulaysto kursi madaxtinimo. qofka ciyaartooyga ahna guushu wuxuu u arkaa marka uu goolka dhaliyo. iyadoo sidaas ahna haddana dhammaan waxaa biyo dhac u ah arrin la tiigsanayay. marka ay timaado qeexitaanka kelmadda guul, waxaad arkaysaa in qof walba ku beesgareynayo aragtidiisa, waana arrin dib ugu laabanaysa kala duwanaanshaha bini'aadamka. haddaba daawade, si kale haddaan u dhigo, sida ay wejiyadeennu u kala duwan yihiin ayay maskaxdeennuna u kala duwan tahay. siday maskaxdeennu u kala duwan tahay ayay aragtideennuna u kala duwan yihiin. guushu waa sida baadi maqan. inaad noqoto qof guulaysta nolosha micnaheedu waa inaad ku guulaysato dhammaan ama inta ugu badan hadafyadaada waaweyn, ilaa aad noqoto mid dhab ahaan ugu qanacsan noloshiisa. sababta dadka inta badan aan guul u gaarin waa iyadoo fikrada qaldan ka aaminay guusha. haddaba daawade, waxaan kula wadaagi doonaa 6 qodob oo kaa caawin kara inaad noqoto qof guulaysta. qodobka koowaad, yeelo hadafka guba oo aad tiigsanayso. Warren Buffett, oo ahaa nin ka mid a dadka caalamka ugu taajirsan, ayaa mar wuxuu yidhi, haddaanan milyaneer 30 jir ku noqdeen, waxaan iska soo tuuri lahaa mid ka mid a dabaqyada ugu dhaadheer Maraykanka. inaad yeelato damac ku guba waa tallaabada koowaad ee aad ku gaari karta wax kasta oo aad rabto nolosha. qodobka labaad, ha ka cabsan inaad qalad samayso. inta badan dadka guuldaraysta waxay ka cabsadaan inay qalad ku dhacaan, oo waxaa ka hoos baxsan in dadka guulaysta ay la kulmaan qaladaad fara badan, koolcelin badan, kadibna ay ka takhallusaan qaladkaas. tusaale, ninka hindisay laambadda ee Thomas Edison ayaa waxaa la weydiiyey siduu u maareeyey inuu 1000 jeer laambadda handiso, isagoo mar walban guuldaraysanaya oo haddana aan rajo dhigayn. qof kasta oo arkana ku maadsanaya wuxuu yidhi, mar kasta uu qof igu yiraahdo waad ku fashilantay samaynta laambadda, waxaan ugu jawaabi, kumaan fashilmin, balse waxaan ogaaday dariiqo kale oo aan lagu samayn karin laambadda. sidaa darteed, Thomas Edison wuxuu hubay in maalin uu ku guulaysanayo, waxa uuna fahmay inay ka xigaan waqti iyo iskudayo badan. qodobka saddexaad, badbedel ficiladaada. aad iyo aadkan muhiimka u ah ee aad ku gaari karto guushaada waa inaad beddeshaa xeeladii iyo habkii aad isticmaashay markaad guuldaraysatay. inaad gaarto guushaada waxay ku xiran tahay inaad marar badan isku daydo oo aad ku celceliso ilaa mid ka mida uu ku hirgelayo. iyadoo sidaas ahna haddana haddaadan ogaan wixii iskudaygaagii hore kaa qaldamay, waxaa laga yaabaa inaad ku sii waddo qaladkaagii hore uun. taasina waa sababta tilaabadan u tahay midda ugu muhiimsan ee aad ku gaari karto guushaada. mar walbo aad guuldaraysato, hagaaji ficiladaada, mar kalena isku day. qodobka afraad, tirada iskudaygaaga. haddaad guuldaraysato, isku day si ka duwan sidii hore, waayo inta jeera iskudaygaagu jiro, marnaba albaabada fursadda iyo guushu ma kaa xirmayaan. horaa waxaa loo yidhi, guulaystayaashu marnaba ma isdhiibaan, kuwa isdhiibayna marnaba ma guulaystaan. qodobka shanaad, aamin naftaada. dadka kugu xeeran way ku dhaleeceyn doonaan, waana ku niyadjebin doonaan, waxayna shak gelin doonaan waxa aad ka aaminsan tahay noloshaada. intaas waxaa dheer, waxaa laga yaabaa inaad marar badan guuldaraysato ka hor intaadan guulaysan, waxaadna wajihi doontaa caqabado badan. haddii aad rabto inaad waxyaabahan ka gudubto, waa inaad noqoto qof u diyaarsan, adkaysina u leh si aanu u burburin rajada iyo riyooyinkaaga. qodobka lixaad, dejiso qorshe waqti dheer ah. inaad yeelato qorshe waqti dheer ah waxay kuu fududeynaya inaad gaarto guushaada, oo badanaa hubi qorshahaaga si aad ula socoto horumarka aad samaynayso. beddel habka aad raacayso haddii aadan wax natiijo aadan helayn, siina wad iskudaygaaga ilaa aad ka gaarto wixii aad rabto. Mm-hmm.